48 saacadood ee laga soo gudbay oo si xawliye looga dareemay meelo kamid ah baraha bulshada ay ku kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada u diyaar garowga munaasabada madasha kulanka dhalinyarada oo si xawliye loo soo buux dhaafiyay mid kamid ah hoolasha ka bilaysan hotel rays ee magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Munaasabadan ayaa waxa soo agaasimay isla markaasina isku soo dabariday madasha kulanka dhalinyarada oo ka kooban xubno kala duwan oo ku kala sugan guud ahaan gobolada kala duwan ee Somaliland sida gobolka Awdal, gobolka Maroodijeex, gobolka Togdheer, gobolka Saaxil, gobolka Sanaag iyo gobolka Sool. Caweyskani ayaa waxa uu noqonayaa kii koobaad ee nuuciisan oo kala oo ka qabsooma gobolka Awdal kaasi oo midaynaya guud ahaan dhalinyarada Somaliland ku kala sugan waxayna ku soo casumeen badiba hal doorada kala duwan ee ku nool gobolka Awdal iyo gobolka Maroodijeex kaasi ay ugu tala galeen inay mowduucyo kala duwan bulshada qaybaheeda kala duwan kala hadlaan. Waxaana kamid ah mas'uuliyiintan ay sida quruxda badan leh ugu soo maamuseen madashii xalay Qoraa Ismaaciil Tukaale Ciye oo ka hadlayay doorka dhalinyaradu ay ku leedahay bulshada, Axmed Cabdi Ismaaciil Axmed Jeesto oo ka hadlayay isna iyo horumarka waxbarashada, Dr. Axmed Aadan Buuxane oo isna ka hadlayay door intee leeg bay dhalinyaradu ka qaataan caafimaadka, Cismaan Caamir Muuse Abwaan Cismaan oo isna gabayo ku saabsan horumarka ay nabadu leedahay ka soo jeediyay, Mukhtaar Xasan Maydhane oo isna ka hadlay horumarka dhalinyarada ee dhanka dhaqaalaha, Asma Maxamed Jaamac Asma Gagajiro oo iyadna ka hadashay doorka ay haweenku ku leeyihiin bulshada, Axmed Maxamed Xaamud oo isna ka hadlay doorka ganacsiga iyo teknoolojiga, Yaxye Cusmaan Yuusuf oo isna ka soo jarmaaday caasimadda Hargeysa waxaana uu ka hadlay horumarka siyaasadda, Mr. Lawrence oo ka hadlay isna hogaaminta iyo maareynta. Ugu horeyntii waxaa munaasabada ay fulay isla markaasina lagu soo dhaweeyay xubin kamid ah madasha kulanka dhalinyarada ee ay ku midoobeen guud ahaan dhalinyarada Somaliland, Mudane Cabdirashiid Maxamed Daahir Cabdirashiid Daacad oo uu ku soo dhaweeyay Dr. Jibriil Colaad Didir oo warbixin kooban ka bixiyay madashan iyo sida ay u soo agaasimeen waxaana hadaladiisii kamid ahaa sidan. soo jeed doona dad aqoonyahana oo gobolka u dhashay reer Awdal waliba Boorame degan ayaa barnaamijka inoo soo jeedi doona qaarkood ka yimaadeen Hargeysa oo ka mid yahay martida caawa isay nooga timday inta kala duwan marka waxa loogu talagalay barnaamijka in dhalinyarada wadanka joogta siiba Boorame waxa makarafoonka ku kala dambeeyay isla markaasina hadallada iska daba qaatay mowduucyadii kala duwanaa ee bulshada ugu tala galeen oo soo jeediyay badiba labeentii kala duwaneed ee habeenkii xalay lagu soo maamusay waxayna hadaladoodu u dhignaayeen sidan. waqtiga shabaabnimadu waa waqtiga uu qofku ugu xoog badan yahay, waa waqtiga uu qofku ugu activity ama nashaad badan yahay, waa waqtiga qofku ugu qurux badan yahay. inta aan tilmaamayno mudayar kadib way dhamaanayaan. shabaabnimada markaa ka baxdo xoogii u dhamaanaya waa bulshada markaa kolba sida ay tahay qofka u sheeg garaysaa waa waxa fara badan ilmayaal badan ama caruur fara badan oo waalidka ku soo tabceen marka dambana ay bulshadu wax badan ka bedesho oo hadhowto markaa waalidkii ilmihii ay isdiidaan leeyahay waxa weyn chapter 2 buu kala deelmihii guriga uu ka baxay bulshadu dhexdeeda marka bulshadaasi hadaan ay hayn mid la qiyam iyo faal iyo noomisa adoo la xeer iyo sharci iyo day wanaag iyo la gurigi was dhaafaya xeerka isbaaridda 6 bilood sanad ayaa lagu cabiraa dhalinyaradu waxay ku fiican tahay horta mar full isku bar then after every 1 year mar full isku bar awoodi karayso waana wax international must weeyaan inaga duruufaha caafimaadka health systemka ayaana hayn midna manhinagu caalamka xeerarkii jira waxa kamid ah in la yiraahdo social system waxa la yiraahdo waxa jira oo health system kaas waxa weeye dhammaan qof kasta oo bulshada ku nool in caafimaadku bilaash yahay marka ama xaafadaha loo qaybiyo ama dhulka loo qaybiyo ama deegaanka loo qaybiyo deedna qof kasta dhakhaatiir khaas ah loo sameeyo primary secondary tertiary waxa loo kala sameeyaa gabay dhawaanahan makicin gayo awgeede magagaabin maasooyinkan goodhabayn jiraye ilaa quma gorfeeye murtida waan gantaamiyaaye xorriyadda muxuu qaatay la'anna qof xor ah uunbaa samayn kara horumarkana waxaan u samaynaa inaan duruufaha inagu xeeran ee na xakamaynaya aan kaga baxno bini aadamka uunbaa horumaradan ballaadhan aynu ka fikirno inta badan leh gabadha wax baran iyo gabadha wax baratay maxay ku kala duwanaanayaan waxay ku kala duwanaanayaan horumarkii dhaqankii garaadkii go'aan qaadashadii wixii oo dhan qofka jaahilka ilaahay bayna la hal yistawuna alladina la ya'lamuuna walladina la ya'lamuun sidoo kale nabi Muuse wuxuu yiri
acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin. magaaladeena waxay caan ku tahay waxbarashada oo Soomaaliya oo dhan baa looga yimaadaa in wax lagu barto haddana waxaad moodaa xagga teknolojiyadda oo kale inay weli iskuulada online-ka lagu yaryihiin. anigu waxaan ka shaqeeyaa Islamic Law University waxaa ku xidhan jaamacadda worldwide dad 500,000 ku dhow 500,000 waxa manage gareeyay dad kun shaqaale ka yar. saddex qayb ka kooban tahay oo ah qaybta shahaadajinta legislative qaybta fulinta executive iyo qaybta garsoorka ah judiciary. hadda qayb cusub baa ku soo dirtay oo noqday pillar number 4 oo ah media. It's very different when you talk of leadership and management. The principle that I know in leadership is you break all the rules. If you want to become a leader, first you break all the rules. That's maybe not very clear. But you know, leaders, as you're going to see, leaders don't use policies, rules, regulations every time. geesiisa isna mikrofoonka waxaa la siiyey isla markaasina madasha lagu soo maamusay mudane cabdiqaadir aadan nuur oo ka socday shirkadda adeega bulshada ee Telesom waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sidan horey loobaan wixii tagay laakiin hadda waa cusub baa ku bariyay maxaa laga baahay markaa inaan qorshe samaysto hadaf samaysto nolosha cusub inaan bilaabo laakiin tii hore inaan ka tago haddaan toore soo raro maxaan la noolaanayaa wixii tagay haddaan mustaqbalka ka fikirana maxaa dhacaya kan joogaan ilaawaya kadib isna mikrofoonka waxaa la siiyey xubin ku hadlayay guud ahaanba afka dhalinyarada Somaliland dhankooga farxadooyin runtiina masaafadaas dheer inaan u soo marnay inaan ka qayb galno kulankanaga aadka u qaaliga ah ee aqoon-yahanadu martida noogu yihiin oo insha Allah wax badan ka faa'iidi doono Najaaniska waxa la siiyay xubno kamid ah dhalinyaradii munaasabadii xalay ka soo qayb galay iyagoo halkaas su'aalo ku weydiiyay mas'uuliyiintii kala duwan mawduucyada kala duwan ee u soo jeediyeen gabagabadii gunaanadkii munaasabada waxa lagu soo afbeenay isla markaasina halkaas shahaado sharaf lagu maamusay dhalinyaradii soo agaasintay kulankani balaaran munaasabadani ayaa waxay ku soo afbeenatay jawi degan oo suxufi cishqi magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal